maxaa maanta ka socda Latin America waa maxay sababta gobol muddo dheer loo arkayay barwaaqa sooranka Mareykanku leeyahay mustaqbalka maanta uu muuqdo inuu isu bedelayo xudunta dagaal caalami ah waa kuma madaxweynaha maanta leh haddii Mareykanka soo duulo hub ayaan mar kale qaadan doonaa hadalkanse ma hadal kicin shucuureed ahba mise waa fariin istaraatiiji ah oo si qoto dheer loo xisaabiyay maxay Colombia iyo Venezuela si lama filaan ugu noqdeen bartamaha hadalhaynta Pentagonka aqalka cad iyo xarumaha sirdoonka Washington mise waxa dhab ahaantii socda waa dagaal aan wali la shaacin oo ku salaysan shidaal awood iyo dib u qaybsiga saameynta caalamka warbixintan ma aha oo kaliya mid aan uga waramayno dhacdooyin balse waxaan isku dayaynaa inaan furno sawirka weyn ee hanjabaadda Trump jawaabta Colombia doorka Venezuela iyo khatarta sii kordhaysa ee kooxaha hubaysan ee abaabulan kuwaas oo bedelay qaabka dagaalka casriga ah ku soo dhawaada Tifaftir Media si loo fahmo waxa maanta socda waa in dib loogu laabtaa Venezuela ma aha dal caadi ah waa dal leh kaydadka shidaalka ee la xaqiijiyay ee ugu weyn dunida taasoo ka dhigaysa mid istaraatiiji ahaan ka miisaan culus dalal badan oo waaweyn madaxweyne Nicolas Maduro muddo dheer ayuu ku celcelinayay hal fariin taasoo ah in Mareykanka uusan weligiis aqbalaynin dawlad ka madax bannaan Washington gaar ahaan marka la joogo maamulidda kheyraadka istaraatiijiga ah isaga oo ku hadlayay magaca fikradda Bolivaria Maduro waxa uu ku eedeeyay Mareykanka inuu adeegsanayo afgambi siyaasadeed cunaqabatayn dhaqaale duqaymo cirka ah iyo howlgallo sir ah si loo gaaro hal hadaf kaasoo ah in la bedelo nidaam lana xakameeyo shidaal wadan leeyahay waxa uu cashar ahaan u soo qaadanayay dhacdooyinkii Iraq, Liibiya iyo Afghanistan laakiin dhab ahaantii isaga ayay ku dhacday Donald Trump ma aha madaxweyne dagaal jecel laakiin sidoo kale ma aha siyaasi ka baqda adeegsiga awoodda istaraatiijiyadiisu waa mid cad oo soo noqnoqotay si fududna loo fahmi karo waa dagaal degdeg ah kharash yar ku baxo natiijadiisa ay fududahay isla markaana ka bixitaan degdeg ah uu sameeyo Trump waxa uu rumaysan yahay in dagaalada muddada dheer qaata ay burburiyaan siyaasadda gudaha Mareykanka sidaas darteed waxa uu door bidaa weeraro kooban oo bedela go'aamo jira marka la eego aragtidiisa Venezuela waa dal taag daran dhaqaale ahaan nidaam ahaan go'doonsan balse leh kheyraad aad u badan taasi waa sababta Trump uu ugu arko barwaaqa sooranta dambe ee Mareykanku leeyahay halkaas oo aan loo ogolaan karin nidaam ka madax bannaan Washington laakiin tabinteenan badi waxay la xiriirtaa Colombia haddii xiisadu ku ekaan lahayd Venezuela xaaladdu way ka sii sahlanaan lahayd laakiin hadalka Trump ee ku wajahnaa Colombia ayaa bedelay ciyaarta markii uu Trump ku tilmaamay Colombia dal jiran oo uu maamulo nin xanuunsan oo darogada ka ganacsada arrintaas ma ahayn oo kaliya aflagaado waxa kale oo ay ahayd fariin istaraatiiji ah Colombia muddo 10 sano ah waxay soo ahayd xulafo military saaxiib sirdoon iyo dal si dhow la shaqeeya Washington hadda maxaa isbedelay jawaabta waxay ku jirtaa hal eray waa madax bannaani siyaasadeed oo ay doonayso madaxweyne Gustavo Petro ma aha siyaasi raaca khadka Washington wuxuu bilaabay inuu si cad u dhaleeceeyo faragelinta shisheeye taasi waxay ka dhigan tahay Colombia inay noqotay qodob halis ku ah Mareykanka si loo fahmo halistaas Colombia waa in sidoo kale la fahmaa cidda dhabta ah ee hubka haysata kooxaha loo yaqaano cartello ma aha burcad caadi ah waa shabakado dambiye abaabulan leh dhaqaale malaayiin ama balaayiin ah leh hub casri ah isla markaana adeegsada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drone-ka gantaalo fudud iyo tiknoolajiyad isgaarsiineed oo casri ah kooxahan waxay ka ganacsadaan daroogo hub lacag dhaqid iyo tahriibin marka qaarna waxa ay ka awood badan yihiin booliis ama xataa unugyo ciidan marka dal sidan oo kale ah la geliyo xiisad caalami ah natiijadu mar walba waa fawda amni bilowga sanadkan 2026 ee toddobaadkii hore uun curtay dunidu waxay indhaha ku qabatay weeraro lama filaan ah saldhigyo ciidan oo Colombia ku yaala ayaa lagu weeraray daroonyo qarxa 7 askari ayaana ku dhintay taasi ma ahayn weerar caadi ah waxay ahayd fariin cad in kooxaha hubaysan ay heleen awood cirka ah in goobaha amniga sare aysan mar dambe ammaan ahayn iyo in Colombia ay ku jirto marxalad cusub oo khatar ah su'aasha taagan ayaa ah ma weeraro goos ah ayay ahaayeen mise waa hordhaca dagaal ballaaran madaxweyne Gustavo Petro wuxuu doortay luqad adag balse xisaabsan wuxuu yiri anigu ma ahi kuwa darogada ka ganacsada markaas wuxuu difaacay sharciyadiisa karaamadiisa iyo madax bannaanida dalkiisa markii uu hadalkiisa ku daray haddii Mareykanku duqeeyo beeralayda waxay isu bedeli doonaan dagaalyahano wuxuu diray fariin cad taasoo ah faragelin military oo lagu sameeyo inay ka dhigan tahay iska caabin dadweyne
taariikhda Latin America waxay muujinaysaa in dagaalada noocan ah aysan wiligood fududayn oo aan si sahlan lagu galaafan waxa kale oo ciyaarta ku jira Cuba mana noqonayso daawada aamusan maxaa yeelay waxay leedahay xiriir taariikhi ah mid amni iyo mid ideology oo ay la wadaagto Venezuela dilka saraakiil reer Cuba ah oo ku sugnaa Caracas ayaa muujinaya in xadka colaadda la jabiyay jihooyin cusub ay furmeen isla markaana khatarta isfidinta dagaalka ay sii kordhayso haddii ay hal rasaas oo dagaal dhulka ah ka dhacdo magaalada Caracas waxay saameynteeda gaari doontaa Bogota oo ah Colombia Havana oo Cuba ah iyo xitaa Washington oo Mareykanka ah Latin America waxa ay maanta taagan tahay isgoys taariikhi ah oo go'aamin doona mustaqbalka amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha gobolka xiisadan sii kordhaysa ma aha oo kaliya khilaaf u dhaxeeya dawlado balse waa loolan ballaaran oo dhex yaala heerarka caalamiga ah madax bannaanida dawladaha iyo istaraatiijiyadaha ku salaysan awoodaha iyo kheyraadka dabiiciga ah halka hal dhinac uu ku baaqayo wada hadal siyaasadeed ixtiraamka sharciga caalamiga ah iyo xalal lagu ilaaliyo madax bannaanida qarannimada dhinac kale ayaa waxa si isa soo taraysa oo ugu muuqda ikhtiyaar faragelin military dagaal degdeg ah iyo cadaadis ku dhisan maquunin si loo xaqiijiyo danaha istaraatiijiyadeed ee quwadaha waaweyn Colombia maanta waxay noqotay qodobka miisaanka ee loolankan dal u dhaxeeya xulafo taariikhi ah iyo cadaadis cusub oo ka imaanaya dibadda isla markaana wajahaya caqabado amni oo gudaha ah Venezuela waa bartilmaameed istaraatiijiyadeed sabab la xiriirta keedkeeda shidaal mowqifkeeda siyaasadeed iyo iska caabinta ay u muujisay faragelinta shisheeye Cuba dhankeeda waxay matalaysaa xoojinta siyaasadeed iyo amni ee iska caabinta gobolka iyadoo door muhiim ah ku leh isku xirnaanta jihooyinka kala duwan ugu dambeyn go'aanka xiga ee Washington han noqdo mid ku salaysan wada hadal ama mid ku dhisan awood military ayaa si toos ah u go'aamin doona jihada mustaqbalka Latin America ma waxay noqon doontaa gobol u gudba xasilooni siyaasadeed iyo iskaashi caalami ah mise waxa uu u leexan doonaa marxalad cusub oo dagaal kala qaybsanaan iyo hubanti la'aan caalami ah su'aashaas ayaa wali furan jawaabteeduna waxay saameyn ku yeelan doontaa gobolka iyo adduunka tabinteena Tifaftir Media intaas ay ku dhan tahay waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin ha moogaanina inaad ku xirnaataan barteennan intaanu dib u kulmayno nabad iyo warsan